Asalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhowaada saaxiibayaal, ku soo dhowaada macadka xornimo dhaqaale. Walaalayaal, halkan waxaa idinku duubayaa maanta cashar aad iyo aad u muhiim ah oo aan filayo qofkii raaca tilmaamaha iyo digniinta iyo ruuliska qofku uu ku ilaashan karo akoonkiisa uu khataraha iskaga ilaalin karo oo noqon doono qof guuleysta. Dad badan oo waxaan aragnay suuqa forex ku jira oo akoomadoodii iyagoo isleh faa'iido doona akoomadoodii ka khasaareen, taasoo ay sababta ugu horreysa ay tahay inaysan garanayn sida khatarta ay iskaga kantarooli lahaayeen, siday suuqa kan ula macaamili lahaayeen. Waana sabab dadka traderska ah guushana u keenta guuldaradana u keenta. Risk management waa cashar in badan aad iga sugayseen. Wuxuu noqon doonaa cashar aan qodobo badan ka hadli doono, kuma ekaan doono muuqaalka kan saan rajeynayo. Muuqaalo kale xigi doona oo aan dadka uga digayo caqabadaha akoomadooda xilliga. Soo dhowaada walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad. Casharada macadka xornimo dhaqaale waxaa xaq u leh qof walba oo macadka xornimo dhaqaale ku jira. Dabcan dad waxaa jira casharadii si khaldan u adeegsada, xataa waxaa jira casharadii meelo khaldan geeya. Raalli kama nihin in dadkaasi adeegsadaan casharadaas oo ay dadka dhalinyarada ah si khaldan ay ugu sii gudbiyaan. Macadka xornimo dhaqaale qofkii u baahan casharadiisa inuu u baahan dhalinyarada aan awoodda badan u hayn suuqa kale inuu ku soo biiraan macadka iyaga, xeer baa nooga yaal. Muhiimadda ugu weyn oo suuqa kan secretkiisa iyo trickiska iyo xirfadda looga shaqaystaan in kugu soo gudbinayo waxa weeye in aan kumanaan qof aan sabab u noqdo suuqa kan inay ka shaqaystaan. Marka qofkii u baahan inuu website-ka soo galo waan soo dhoweynaynaa, aan awoodin 90% dadka macadka noo yimaada oo aan awoodin waan soo dhoweynaa. Intaa markaan kaga gudbo, walaalayaal, waxyaabaha aan kaga hadli doono waxa weeye qodobada ugu muhiimsan tradingka. Haddaad hoos ka soo bilowno waxa weeye qofku markuu khatartiisa markuu suuqa kan uu uu iska ilaalin karo faa'iido joogtaa samayn karo. Kow inuu garanayo technical analysis. Technical analysis-ku waa market structure-kii. Inaad garanaysid xirfaddii analysis-ka aad suuqa ku samayn lahayd. Waa maxay? Waa saadaalinta suuqa adigoo wax ku salaynaya wixii soo dhacay si aad u saadaalisid jihada suuqa. Maxaa weeye hadda hadalka kuu joociyo waa saadaalinta suuqa. Waa barashada wax soo dhacay si aad u ogaatid waxa dhici doona. Double top-ku tusaale ahaan markaad double top ku trade garaynaysid, taabashadan hadda soo dhacday inay sal aadayso waxa kuu sheegi doona taabasho horey u soo dhacday. Markaad ka trade garaynaysid flag-ga oo aad correction suuqa ku jira rabtid inaad ka faa'iidaysatid, maxaa ogaanaysaa suuqa kan dhaqaaq inuu horey u soo dhacay. Dhaqaaqaasi waa maxay? Waa tilmaame iyo secret ku siinaya suuqa kan inuu dhaqaaq sii samayn doono. Ascending journal-ku waa maxay? Waa correction kor u jeeda. Wuxuu kuu sheegayaa correction-kaasi waa wax dhacay soo maaha. Wuxuu kuu sheegi doonaa waxa dhici doona oo ah suuqa kan inuu sal aadi doono. Marka walaalayaal, technical analysis markaad baratid secretkiisa waxaad baratay habkii suuqa kan aad uga shaqaysan lahayd. Habkii suuqa kan aad uga shaqaysan lahayd waa baratay. Risk management-gu marka qodobka labaad waa maxay? Waa step-ka labaad uu qofku marayo markuu technical analysis barto. Ogowna mar walba aad analysis baratay kuma filna inaad suuqa kan ka shaqaysid. Haddaadan garanayn taxadaraadkii, haddaadan garanayn qaynuunkii, haddaadan garanayn habkii loo shaqaysan lahaa. Risk management-gu waa sida khataraha ku imaan kara lacagtaada aad u maamuli lahayd. Sidee khatarta iskaga ilaalinayaa? Haddii khatari timaado sidee uga gaashaaman karaa? Qodobka saddexaad waxa weeye patient.
waa sugid waa maxay maxaa baranaysaa markaas sugidda isdiyaarinta suuqa si cilmi ku salaysan markaad trade qaadatid waa sugaysaa inta meeshii la rabay uu gaarayo waa maxay caqabadaha ugu xun oo dadka dhalinyarada ku dhacda lacag bay waxay keenayaan boqolkiiba boqol jihada ay aadaysa ogaanayaan way soo gelayaan 20 bib 10 bib markay soo dhaqaaqdo bay isla markii jaranayaan hadhow waxay leeyihiin allah lacagtan waa la isgareeyey 400 oo bib bay dhaqaaq waa maxay waa inaad garanaysid dulqaadka kuu sheegaya iyo ruleska loo raaco inaad lacagta tan haysan kadib ayadana waan ka hadlaynaa marka technical analysis waan ka soo hadalnay risk managementina haddaan ka soo hadlaynaa iyo tallaabo walba oo khatarta kaa ilaalin kardha maskaxdaadana deganaan u yeeli karta waa maxay haddaba risk management risk managementku waa habka dadka traderska ay iskaga ilaalinayaan in uu hoos u dhac xooggan ku yimaado akoonkooda ama lacagta ay ku trade garaynayaan oo ay rabaan inay ku shaqaystaan waa maxay waa lacagta qofka akoonka ugu jirta uu rabo inuu ku shaqaysto habkay ugu ilaalin lahaayeen akoonkaasi hoos u dhac xooggan ku yimaado haddana risk management waa maxay waa inaad ilaashatid waxa aad haysato qodobkan waa inaad ogaataa mar walba waa inaad maskaxda ku haysato waa inaad ilaashato waxa aad haysato ka hor inta aadan raadin wax kale yah waa inaad garanaysaa hantida aad haysatid boqolka doolar aad haysatid 500 doolar aad haysatid 2,000 doolar aad haysatid 10,000 50,000 boqolaalka kun oo aad ku trade garaynaysid habka loo ilaashado waa inaad garanaysaa inta aadan wax kale raadin waxaan ku bari doonaa tallaabooyinka loo raaca habka risk managementku waa sida aad u maareynaysid khatarta ku imaan karta lacagtaada waa maxay sidee u maareynayaa haddii lacalla khatarta akoonkayga ku timaado waxaan ku barayaa inta aysan wax dhicin inaad suuqa 2 tillaabo ka hor qaadi adigu maxaa qaadaysaa adigaa 2 tillaabo ka hor qaadaya wax aan dhicin wax aanan dhicin hadalkayga fahan wax aanan dhicin inta aysan dhicin saad u gaashaaman lahayd baan ku barayaa aad iskaga ilaalin lahayd waxa ugu muhiimsan waa isticmaalidda lot size-ka waa isticmaalidda lot size-ka ku habboon akoonkaaga iyo stop loss-kaaga waa maxay waxaa arkaysaa maanta dad market structure isticmaalaya oo lotkii akoonkooda ku fiicnaa sidee loo soo saari karaa maxay tahay qaynuunka iyo sharciga i hagaya oo ii sheegaya lacagtaas inaan lot size-ka noocaas ku galo maxay tahay stop loss-ka aan dhiganayo oo haddii stop loss-kaas aan dhigto aanan ka baqayn stop loss-kaas inuu hal mar iga dhaco suuqa maxay tahay ayadana waa ku barayaa qaynuunka iyo sharciga u maraysay walaalayaal ogaadana mar walba oo aad market structure ka trade garaynaysid labada qodob waa labada qodob oo ugu awooda badan oo haddii ay kula yaraadaan suuqa kan aad iskaga bixi doonto gabaysa stop loss-ka iyo lot size-ka habkaad u maarayn lahayd haddaba xaggan waxaan xog ururin ku sameeyey akoomada maanta waxa kan waa dhalinyarada aqoon-yahanada ahaa waa dadkii maaragtay Soomaaliya joogay waxa ugu muhiimsan oo maanta xooga saarayo waa dadkaas dhalinyarada ah oo Soomaaliyeed adduunka meel joogan ha jirtee waxaan dareemayaa akoomadooda inay ku shuban karaan $100 $200 $500 $1,000 $5,000 iyo $10,000 inay ku shuban karaan akoomadooda barnaamijsana haddaba haddii akoonkaada ay kugu jirto $100 maxay tahay lot size-ka aad akoonkaada gelin karin maxay tahay lot size-ka aad isticmaali karin maxay tahay lot size-ka ugu yar aad isticmaali karin halkan waa lacagta aad haysatid oo aad ku trade garayn karin xaggana waxa kaga hadlaya lacagta aad suuqa ku galaysid lot size-kaada ee ugu badan xaggana waa maxay waa qiimaha ay u dhiganto lacagta suuqa aad ku galaysid dollar ahaan marka walaalayaal haddii $100 akoonkaada kugu jirto waa lotka aad ku galaysid waa inuusan dhaafin 0.1 lotkaadu inuusan dhaafin walaalayaal sorry halkaas 0.01 weeye halkaas waa maxay waa 0.01 weeye error typing baa halkaa ka dhacay walaalayaal lacagta $100 haddii kugu jirto waa in akoonkaadu aysan dhaafin
0.01 lot ama 0.02 lot waynaysan dhaafin 0.01 maxay u dhigantaa waxay u dhigantaa 0.1 bay u dhigantaa dollar 0.02 maxay u dhigantaa 0.2 dollar marka digniin baa ku siinaya waxaa jira markii la yiraahdo qof baa waxa la leeyahay akoonkaada lotka aadan dhaafin karin oo haddii aad dhaafisay aad risk u bareeraysid waa lotkaas baa loo sheegayaa wuxuu is leeyahay 0.1 buu wuxuu gelayaa 3 jeer wuxuu gelayaa 5 jeer buu gelayaa 0.1 haddaad 5 jeer gashay intee isku noqonaysaa waxay noqonaysaa 0.5 bay noqonaysaa dollar hallo akoonkaadii haddii 20 bib kor lagula kaco boqolkaada dollar waa weyday shuf marka ha isku dayin suuqaada inaad suuqa khiyaantaha isku dayin marka MT4 ka furti lacagaha aad ku trade gareynaysa markaas 2 jeer haddaa gashay akoonkaas 0.1 waa inaad ku gashaa ugu badnaan maxay isku noqonayaan markaas labada position oo ku furan 0.2 bay isku noqonayaan haddii aad khatarta ugu weyn aad akoonkaada gelinaysa $100 maxaa ku galaysaa 0.02 wax ka badan oo trade ma furi kartid hal mar waa inaad ku furtaa digniin baa ku siinaya dad waxaa jira 5 jeer furanaya waa kaa gubanaya haddii $200 aad ku trade gareynaysa lotka ugu weyn oo aad ku trade gareynaysa waa inuusan dhaafin 0.02 GBP USD baa soo qaadatay 0.02 baa gelisay waa ku dhufatay waa saxantaa markaas waa lotka ugu weyn oo $100 aad gelin kadib hadaa gelisay akoomo badan oo dad iska dhiga tira qiinuunada suuqa kan meeshay mareen buu akoonkaadu mari doonaa okay 0.02 waa ku gashay waxaa tiri allah 0.02 waa lotka ugu weyn oo akoonkayga la gelin karo markii $200 ay tahay 3 jeer baa gashay 3 jeer haddaa gashay waa maxay 0.02 3 ku dhufo 0.06 baa akoonkaada gelisay waa maxay akoonkaadii waxaad gelisay khatar weyn baa gelisay waa $0.6 bay u dhigmaysaa halkii bib oo kugu dhaqaaqa akoonkaada khatar aan caadi ahayn baa u bareertay marka waxaan kugula talinayaa akoonkaada inaadan risk gelin akoonkaada walaalayaal waa in qaynuunka aan kuu sheegaya aad step by step u raacdaa waxyaabo badanna waan ku tixgelin doonaa qaabkan $500 waa maxay 0.05 wayna soo dhaafin oo u dhiganta $5 u dhiganta 0.05 waa $5 u dhiganta haddaa 2 jeer gashay 0.05 maxay noqonaysaa hal lot bay noqonaysaa 0.1 bay noqonaysaa 0.1 muxuu u dhigmayaa $1 buu u dhigmayaa haye $1 haddaa 2 jeer akoonkaada gelisay oo suuqu 100 kugu dhaqaaqo akoonkaadii half baa maqnaanaya marka waa inaad khatarta ka digtoonaataa lacagaha hadda 0.5 soo geli karaa 0.01 haddaa 5 jeer galo maxay isku noqonayaan 0.05 markaas waa samayn karnaa waa fahmaysaa yani waxa ula jeedaa haddaan sharaxaad yar kuu sameeyo walaalayaal akoonkaadu waa kan GBP USD baa waxaad ku gashay 0.01 haddana maxaa ku gashay GBP USD 0.01 haddana maxaa ku gashay GBP USD 0.01 ilaa maxaa ku gashay 4 jeer baa ku gashay soo ma 4 jeer baa walaalayaal ku gashay dad waxaa jira aan waxba xisaabsan karin oo hadhow maaragtay 0.5 5 jeer ku galaya intee ku gashay 1 2 3 4 5 baa gashay shanta tan markii la isku daro maxay isku noqonayaan haddaa isku xisaabisid 0.05 isku noqonaya ya waxa weeye $500 marka ku trade gareynaysid lotka ugu weyn oo khatarta xataa asagu keeni kara oo lotka ugu weyn aad ku gali kartid weeye marka 500 ku trade gareynaysid haddaba ka waran meeshii 0.05 ahayd haddaa 5 jeer gashay ka waran haddaa dhahdi alla akoonkayga $500 buu ahaa 0.05 baa 5 jeer ku gali karaa haddaa dhahdi ka waran haye ma suuqa khiyaamaysaa suuqa haddaa khiyaan isdhahdi maxay isku dhigmayaan waa 1 2 maxay noqonaysaa 2.5 bay noqotay maxaa akoonkaada suuqaada ku gashay
$25 ba halkii bid ba lagugu dhaqaaqaya. haye suuqa hadduu kugu dhaqaaqo 50 bid keliya kugu dhaqaaqo akoonkaada saasuu ku gubtay. 50 bid hadduu kugu dhaqaaqo suuqu saaxiib akoonkaada waa tegey. marka suuqa ha khiyaamin. تريديدا aad galaysid haddaa $500 aad ku trade gareynaysid yaa تريديدا aad galaysid oo dhan haddii la isku dardaro waa inaysan 0.05 aysan dhaafin markii lotka la isku dardaro. digniin baa kaa siinaya dad badan oo iska indha tira baa jira laakiin waxa suuqa kaga bixi lahayd haddaad iska indha tirtid. haddaad $1,000 haysid waxa kan waa maxay qaynuunka kan aan kugu qoray maaha waxaanu soo xarxariiqday waa wax dad badan oo khubraa ay dejiyeen dad badan oo shuruucda tan suuqa kan ku wareeray ay dejiyaan lot size-ka dhankiisa. guushaadana waxa keeni kara waa lot size-ka, guuldarradaadana waxa keeni kara waa lot size-ka. marka isku day inaad lot size-ka aad dhag u lahaati waxa lagu sheegay. $1,000 trade walbo aad gashi 3 trade haddaad gashi waa inaad halkaa lot aad qaybsataa ama se aad hal mar gashaa halkaa lot 0.1 ka ah. wuxuu u dhigmaa 0.1 $1 buu dhigmaa. suuqi maanta trading balan baa dhigatay bishii 8 jeer baad suuqi ka shaqaysatay 8 jeerba waxaad qabsatay min waxaad qabsatay $50 baa qabsatay 8 jeer min $50 baa qabsatay akoonkaadi waxaa haysataa barkiis baa shaqaysatay khatartii weyneedna waa iska ilaalisay oo lotka yarkaa waa halkii trade ba ku galaysa. marka adigu iimaan isku yeel adduunka qof maalintaa jira ma jiro yaa qof khamaaray maahan qof maalintaa jira ma jiro. aawaye dadkii maalgelinta Soomaaliya qaban jiray aawaye dadka akoomada u qaban jiray maxaa khasaareeyay iimaan la'aan lot iska weynaaday baa la gelinaya akoonka. maanta ma jiro ganacsi $100 ah ku bilaabi kadib oo lacag fiican ka dhiman kadib. maanta waa yar yahay waddankeena fursad kama jirto $1,000 intaad maanta shaqo ku samaysid inaad $1,000 2 bilood 3 bilood kadib aad dhowr kun oo dollar u bedesho ma jirto. maanta ma jirto $5,000 ma jirto aad dhaqaale badan ka samayn kartid keliya suuqa kan bii fursaddaasi dhex taalla. fursaddaasna waxa weeye inaad aqoonti barati qaynuun walba oo lagu sheegayana haddaad tallaabo ka boodid suuqa kan kugu naxariisan mayo la soco. $10,000 baa la joogtaa. $10,000 lotka ugu weyn oo aad galaysid waa inuusan hal lot dhaafin. hal lot waa inaysan dhaafin. 5 trade haddaad $10,000 ka qaadatid 5taa trade markaa xisaabtantid mid walba waa inaad 0.01 ku gashaa. 5 trade haddaad isku mar ka furatid isku mar waa inaad furatid baan ka hadlaya yaa isku mar haddaad furatid baan ka hadlaya waa inaysan 0.01 dhaafin 0.1 is dhaafin. waa maxay 1 2 3 4 5 waxaa isku noqonaya 0.5 0.02 baan ka wadaa. laakiin haddaad dhahdi ustaadkii baa wuxuu yiri akoonka $1,000 hal lot baa lagu galaa 5 trade ka furatay min hal lot ka furatay ka hor min hal lot ka furatay hal kilo $10 buu dhigmaa waa 10 20 30 40 50 $50 baa suuqa ku gashay. haye lacag baa kor kula aaday tusaale ahaan lacagtan oo kale waxay kula soo aaday 100 bib kaliya kula soo dhaqaaqay wax badan buu kula soo dhaqaaqay sel bay ugu maada jireen bay baa ugu jirtay 100 bib baa hoos kula soo aaday 100 bib konto ku dhufo waa $5,000 akoonkaada $5,000 baa harna guud. marka xariif is ilaali waxaa ku leeyahay lot size-ka waa waxa ugu weyn oo guushana ku keeni doona guuldarradana ku keeni doona. intaa markaa isla garanay walaalayaal haddaan dib uga soo baxno qaynuunadii ugu muhiimsanaa haddaan dib iskula nimaano stop loss-kaadu maxaad samaynaysaa marka stop loss-ku waa maxay markii laga hadlay risk management 90% waa maxay waa waanooyin wey waa qaynuuno lagu sheegayo inaad adigu ku samaysid waxaana samayn kara qof iimaankiisu yahay iimaan macaan iimaan fiican. qof hunguri weyn oo akoonkiisa saaraya culays ka weyn ma guulaysan karo. haddaba waxa ugu muhiimsan waxa weeye stop loss-ka xagee dhiganaya beginner iyo advance waa same bay ka yihiin. waxbaa markii lot size-ka laga shakeynayo indhatir structure badan baa ku tusaya waxa dhaca iyo waxa ay dadku aaminsan yihiin. stop loss-kaadu waxaad ka dhiganaysaa suuqu meeshuu marayo iyo meeshuu gaari doono inta bib ay isku jiraan. marka halkan waxa kugu baraya sidee la isku waafajiyaa lot size-kaada iyo stop loss-kaada adiga oo xisaab samaynaya
akoonkaadana khatar ka ilaalinaya trade-kaana inaad dib badan ka qabatid sabab noqonaya marka maxaa samaynaysaa qodobka koowaad waa maxay halkaan ayuu qodobka koowaad lacagta aad haysato inta aadan trade-ka gelin waa inaad garanaysaa lacagta aad suuqa kaga trade gareynaysa $500 bay tusaalaha labo lotseskaada ka fakar marka koowaad waa inaad lotseskaada ka fakarta trade-ka intaadan gelin ka hor waa inaad lotseskaada ka fakarta waxaa dhahaysaa akoonka anigu aan haysto lotseskaan ku geli kara muxuu yahay 0.01 ilaa 0.05 lot ka weyn akoonkayga kuma geli karo waa inaad qaynuun meel kugu qoran u yahay waa inaad garanaysaa akoonkaaga lotka ugu weyn aad ku geli karto maahan ka hadli mayo wax maalin walba aad ku fikiraysay lot aad maalin walba ku fikirayso qaynuun kugu qoran uu yahay saddex ku talagal khasaare maxaa samaynaysaa waa inaad ku talagashaa lacalla haddii aan khasaaro maadan khasaariyaa waxaa ku talagalaysaa lacalla haddii aan khasaaro maxaan khasaarayaa trade-ka kan bannaanka ku yaala inaad trade galaysaa rabtaa waxaad ku xisaabtamaysaa dhibka soo bixi doona yah see ugu talagalaysaa khasaaraha kan waxaa ugu talagalaysaa dhibka soo bixi doona oo lagu dhuftay lotkaada kadibna waxaad ka fakaraysaa khasaaraha dhici kara ma ka go'i kara akoonkayga qodobka haddaa isdul taago waxaad dhahaysaa waxaad ka fakaraysaa bibka soo bixi doona oo lagu dhuftay lotkaada kadib waxaad ka fakaraysaa khasaaraha dhici doona baa ka fakaraysaa khasaaraha geli kara akoonkaada intee la egyahay okay halkan baa lacag ka gasha aan falaarta ku hayo tusaale ahaan trade-ki maxaa tiri halkaasaan ka galay ugu yaraan ilaa halkaasa haysanayaa ugu badnaana maxaa haysanayaa ilaa meeshaasa haysanayaa waa soo fikirtay halkan waa maxay waa meel suuqu uu ka dhaqaaqi karo wey halkaasna waa maxay waa meel suuqu ka samayn karo 1 iyo 2 iyo 3 marka xeerar baan ku soo bara waxaan ku yidhi lacag walba oo dhaqaaqda oo suuqan dhex taala waxay ku dhaqaaqdaa structure bay ku dhaqaaqdaa waxay ku dhaqaaqdaa double top iyo 1 iyo 2 iyo 3 bay ku dhaqaaqdaa haddii double topka halkan la joogo ay ka dhaqaaqayso waa in suuqu uu momentumkiisa lumiyaa waa in suuqu si daciifsanaanshaah oo correction ku yimaada ama uu dhaqaaqito kaga soo dhaqaaqo oo correction ku galaa waa labada qaynuun oo sheegaya suuqa kan inuusan halkaa gaari doonin maxaase dhici karaa suuqa kan hadduu halkan intuu ka laaban waayo uu halkaa tago waa qaynuun weyn oo suuqu asaguna mustaqbalka sal dheer ku aadi karo marka waxaan kaa ilaalinaya waxa weeye marka aad trade-ka halkan ka galaysa aan falaarta ku hayo yah xaggee stop loss-kayga dhiganaya maxayse tahay lotka aad suuqa ku geli karo waxaa kuu go'aaminaysa intriga meesha ka qaadanaysid baa lotkaada kuu go'aaminaysa okay waa isdul taagaynaa waxaanoo dhan practical baa tugaynaa okay afar waxa weeye stop loss-kaada waxaad ka dhiganaysaa suuqu meesha uu marayo xagee maraya halkan iyo meesha uu gaari karo inta bib u dhaxaysa qodobkan baa kuu jilcinaya waxaad ka dhiganaysaa stop loss-ku meesha suuqu marayo iyo meesha lacalla suuqu jihadaa u rabta maahana hadduu jiha kale kula aado meesha lacalla uu gaari karo baa ka dhigaysaa suuqan sal baan ka rajaynayay laakiin haddii ay dhacdo suuqu inuu ila laabto xagee u gaari karaa halkaa waa inaad halkaa korkeeda ka dhigataa marka maxaa haysataa adugu yaba kalsooni baa haysataa tusaalahan ku tusaya waxaa cajiibka oo halkaa kasoo dhexbaxa macquul qof trader inuu daawanayo uu wax yar u arkayo laakiin waa wax guushaada iyo guuldarradaada ku xiran structure-ka iyo risk management-ga sida la isku barbar dhigo okay haddii stop loss-kaadu bato baan ku yidhi lot size-kaaga intii loogu talagalay waa kasii yaraynaysaa lacagta tan halkaa markaa xisaabisay mastaradii baa soo qaadatay waxaa tiri ilaa halkaa haddaan xisaabiyo bib badan bay kugu noqotay markaas bibkii badnaa waxay noqotay tusaalahaan dahab baa ka trade gareynaysa dahab intaa yartaaba waxay noqotay 250 bib bay noqotay markaas 250 bib haddii aad 0.05 oo akoonkaada loogu talagalay aad ku dhufatay xariif intee kaa go'aysa waa inaad xisaabtantaa 250 bib 0.05 haddii lagu dhufto waa $125 $125 waa wax aad u badan markii $500 akoonkaada kugu jirto waa inaad dhahdaa niyow lacalla haddii lacagtan ila laabato
$125 xoogaa waa dhib bay ugu tahay lotkaada waa inaa yaraataa 0.03 waa inaa ka dhigtaa waa inaa meeshii loogu talagalay ka yaraysaa okay haddii stop losskaadu yaraado lot sizeskaada caadiga ah ku gal oo akoonkaada ku habboon xaggan waxay kuu noqotay 25 bp distancegaa noqotay yah korkeedaa dhigata markaas dee stop losskaada 0.05 dalaq dheh ilaa boqolaalkaa bib oo faa'iidada ah baa suuqa ka helaysaa hadduu lacala kula laabtana waa adkaysan kartaa oo hadhowna trade line-ka baa 1 to 3 kuu soo celinaya laba kalsooni baa haysata marka qaynuunka kan iyo structure-ka si la isku barbar dhigayo waa inaan chartiga tagnaa okay tusaale haddaan soo qaadano walaalayaal lacagtaani waxay ka mid tahay lacagta aan hadda qaab sawireedka kugu tusayay lacagtii qaab sawireedka haddeer aan kugu tusayay bay ka mid tahay soo ma okay lacagtan waa lacag ka mid a lacagaha aan ardayda si tooska ula wadaagay waxaan samaysay walaalayaal lacagta tani halkan ba waxay kaa tustay 1 iyo 2 iyo 3 sidoo kale waxay ku siisay candle-kii kuu sheegaya suuqa kan inuu xoog u daadan doono kuu sheegayay bay kuu sheegtay ba halkaa ka heshay okay waa gashay lacagta tan inta aadan gelin ka hor waxaa baratay suuqu inuu sameeyo 1 iyo 2 plus double top suuqu inuu ku dhaqaaqo sidoo kalena suuqa la qaynuunka labaad oo ku dhaqaaqo uu yahay plus 3 saddex touch inuu suuqa samaysto waxaad dhahaysaa haddii suuqu lacala ay dhacdo in akoon lacagtan markii aan galo lacala haddii ay dhacdo in suuqu uu iska sii laalaabto oo waxa kan correction dheer u noqdo yah waxa kan iyo hal correction oo dheer isku noqdaan intaanu ila laabtay waa imisa bib baa dhahaysaa intee bib bay noqotay waa 60 bib soo maaha meesha korkeeda baa stop losskaada dhiganaysaa lambarka halkaa kaaga muuqda xariijinta korkeeda waa stop loss ka dhiganaysaa okay maxay tahay marka waxaan kuu sheegayo muhiimadda ay kuu leedahay nafsiyadaada maskax ahaan iyo aqoon ahaan iyo waxa ay kaa ilaalinaysa maxay tahay okay waxaan dhicin qofkii ku tashaday waxa dhici doona dad waxaa jira suuqa hadduu minus ku bilaabo adiga tusaale ahaan suuqa kugu laabto soo ma waxaa og tahay suuqa kan kugu laabtay in halkan uu ka soo laaban doono boqolkiiba boqol maxay og tahay suuqa kan hadduu kugu laabto inuu halkaa boqolkiiba boqol ka soo laaban doono uu dhulka geli doono og tahay soo ma boqolkiiba boqol sababtoo ka muxuu samaynayaa 1 2 3 buu kusoo samaynayaa oo ah qaynuunka high probability-ga la yidhaahdo huwa awoodda badan suuqa ku taabto sidoo kale waa xisaabsanaysaa 65 bib calculator-kaada la soo baxaysaa waxaad dhahaysaa 65 bib haddii lagu dhufto 0.05 waa intee dollar waa $32 yes $32 shanteeda boqol haddii $32 saa ugu dhaqaaqdo waxba iga dhimi maysaa dhahaysaa waxba iga dhimi mayso waa dhahaysaa waxba iga dhimi mayso haye $500 baa kugu jirta xariif waxaad tiri iimaankaa iska qaaday ma garanaysa meel stop loss la dhigto ma garanaysa meel wax kale la dhigto lacagti waa iska gashay hal lot baa ku gashay adoo $500 akoonkaada kugu jirta hal lot maxaa lagula dhaqaaqay 60 bib baa lagula dhaqaaqay 60 bib hal lot ku dhufo oo $10 u dhiganta $600 aawa lacagtaadi waa gubatay okay marka waa inaad garanaysaa kow akoonkaada lotka u qalma labo waa inaad garanaysaa lacala hadduu suuqu kula laabto maba dhicinba lacala hadduu suuqu kula laabto oo dhacdo ruleski suuqa rule ka mida uu kugula laabto waa inaad garanaysaa meesha boqolkiiba boqol isbaarada labaad kuu noqonaysa waxaa noqonaysaa qof degan oo hanbaqdina ku jira waxaa noqonaysaa qof maanta dhan taleefka aan waardiye ka noqon mayniska igu socda ii fiiri xaggee wax marayaan balaaya suuqii baa igu laabtay noqon maysa sababtoo kaa maxaa samaysay lot macquul ah oo akoonkaadana hadhow hadduu lacala suuqa kuu dhaqaaqo faa'iido badan kuu keeni doona baa ku gashay 200 oo bib suuqa hadda soo dhaqaaqa yah
muxuu soo dhaqaaqay 200 oo bib. 200 oo bib waxaa dhacaysa markaa xisaab suuqa ku gashay, og tahay waxa dhici doona, og tahay lotkaan khatarta kuu keeneen. Haddii lagula laabto oo intaasoo bib suuqa xataa kula laabto, aad og tahay khasaaraha ku soo gaari doona inuusan akoonkaada waxba u dhimi karin. Yah, maxaa ka faa'iidaysanaysaa? 200 oo bib oo soo dhacday si qurux badan baa uga faa'iidaysanaysaa. 200 0.05 ku dhufo $100 baa shantaadii $100 ku dartay. Maxaa heshay? $600. Haya xarif ma garanaysid in akoonkaada lot fiican lotkiisaada garanayn. Yah, khasaare baa lagulama aadin ka soo qaad. Lot adoo iimaanka iska qaadayo isle shantaada boqol lacag badan u bedel baa lot way gashay. Suuqu markuu 2 kandal kuu soo dhaqaaqo 20 bib keliya markuu soo dhaqaaqo baa kaf siisanaysaa. Yah, 20 bib markuu lagu soo dhaqaaqa kaf siisanaysaa. Sababtu waa maxay? baqdin baa ku jirta. Waxay og tahay haddaad suuqa lacagta sii haysatid waa baqaysaa. Awood ka weyn baa akoonkaada ku gashay. Marka saaxiibayaal ogaada lacagaha habka loo dhigto bahalka. suuqu maxaan ku yidhi 3 qaab baa stop loss loo dhigtaa. Waa in suuqu maaragtay uu kuu sameeyo 1 2 3 caadi kuugu tago. Suuq halkaas kale 1 2 3 ka sameeyey baa trade ka qaadanaysaa. Maxaa samaynaysaa? ugu yaraan cabaar baa laga baxaa. 50 bib baa laga baxaa meelaha, 40 bib baa kor looga baxaa. Halkaas kale waa stop losskaada la dhigtaa. kadibna halkan baa suuqa laga galaa. confirmationadii suuqa oo dhan markuu dhamaysto baa la galaa. kusoo daadanaya. weliba suuqyada maaragtay saan oo kale double top waa inaad ku qaadata. ascending bannaan iska yaal inaad qaadan wey. waa in ascending channel double top haysta yahay. double top waa maxay? calaamadda labada taabasho ah. 50 bib baa laga baxaa, waa la soo galaa. haddii suuqu uu ku jiro large correction, yaa stop losskaada ma meelaha halkan uu marayay suuqa lacagtaada. stop losskaada ma meelahaana dhigaysaa? may ina meelaha dhigataa. correctionka oo dhan korkiisa waa inaad dhigataa. xisaabisaa bibka u dhexeeya intaan. markaa bibka xisaabisi lotkii aad ku geli lahayd ku dhufo. waxaa dhahdaa haddii lacala suuqu igu laalaabto lotkaas haddaan ku dhufto akoonkayga maxaa ka go'i kara? yacni akoonkayga ma haysan karaa? yacni mayniska ma haysan karaa? yah, wuu kula laabtay. haddii akoonkaada 500 leh intaan kugula soo laabanayay iyo 500 ba 300 ay gubato ma haysan kadib. laakiin intaan lagula sii gaarayay haddii aad xoogaa haysatid stop losskaada kor buu ka yaalaa boogta. suuqu correctionkiisa uu ku laabtay isla markii maxaa dhacaya? 100 bib baa kuu daadanaysa oo haysan ka dhac. xoogaa butuu maynis ku geliya 30 20 ku geliya maynisa baa maxay helaysaa? 100 bib. maxaa weeye waxaan horta ma dhacaan. rar badan bay dhacaan. laakiin waa inaad xisaab ku socotaa adigu. waa inaad adigu dhan xisaab ku socota. double top haddii lagu sameeyo double topkaada waa inuu noqdaa strong waa inaad ku qaadataa. ascending channel iyo waxaas oo dhan ku qaadataa. kadibna 50 iyo wixii kasii fiicanba aad stop loss macquula aad dhigataa. badanaa waxaa lagu xisaabtaa double top markaa xisaabsanaysid in suuqu meelaha ma aragtay ay sheegay fiiqyo yar oo kasii shisheeya korkooda waa lasii saartaa. double topkaadii halkaanaba meelahaas kale stop loss la dhigtaa. bidixda intii la fiiriyo meelo suuqa laga celi jiray. okay, haddaan fiirino waxyaabihii kale haddaan fiirino lacagtani walaalayaal waa lacag aad u qurux badan. waxaa ogaatay lacagta tani 1 iyo 2 iyo 3 inay soo samaysay dhaqaaq inay soo samaysay. ku sharaxi maya hadda tan qaabka suuqa kale loo analyse gareeyay, laakiin waxaan ku sharaxaya habka aad khataraha uga hortagaysa ee halkaa kuu samaysay. xaggee stop loss ka dhiganaysaa? mar walba suuqu falaag markuu soo sameeyo, weliba falaagyada yaryarka oo teedka markuu sameeyo yaryarka. falaagyada waaweyn maxaa la yidhahdaa? kuwa muufiska saana leh baa la yidhahdaa. kuwa muufiska la weeye. laakiin kan waa maxay? waa correctiono yaryar. haddaba see kan uu khatar kuugu keeni kara? kan wuxuu khatar kuugu keeni karaa intuu kugu soo dhaco buu muxuu kugu samaynayaa? mid weyn baa kugu samaysmaya.
marka meelaha u dhow inaad stop loss ka dhigatid falaagyada yararka waa risk. xarif maxaa kugu dhacaya? waxa kugu dhacaya in intuu kor move saa kula kaco haddana saa kula kaco haddana saa kula kaco stop loss kaad yarkaa meelaha aad dhigatay madaxa loogu dhufto in suuqu large correction qaato hadhowna ciil uu kugu dilo oo kumanaan bib oo dhulka saa usoo dhaco. marka waa maxay? waa inaad garanaysaa naqshad walba khatarta ay kugu keeni karto in akoonkaada maaragtay ay kuu baalkeyso. falaagyada yararka marka maxaa la qaataa? usha markay saan tahay barkeed oo kale baa stop loss kala dhigtaa. usha barkeed baa stop loss kala dhigtaa. marka stop loss ka dhigato waa xisaabinaysaa. waxaa leedahay usha intee u jirtaa? 70 bib bay u jirtaa soo ma? halkaasaa dhiganaysaa. halkaasaa ka gashay soo maaha? maxaa samaysanaysaa? 70 bib baa ka dhiganaysaa. okay waxaan dhicin baa ka taris. markaa biqi maysa waxaa ogtahay suuqa kan boqolkiiba boqol waxaad ogtahay aqoontaadana kuu sheegaysaa. xataa lacagta tani hadday maaragtay large correction samayso in falaaga kan barkiisa aan la dhaafi karin, bartankiisa inaan la dhaafi karin, inaan la dhaafi karin baa ogtahay boqolkiiba boqol. ha iska laalaabto 2 maalmood 3 maalmood ha iska laalaabto haddii uu ruulkan sameeyo weeye kii faa'iiday baa noqonaysaa. marka sirtaa walaal aan kuu sheegayo waa maxay? waa inaad garanaysaa naqshad walba iyo meesha stop loss-ka laga dhigayo adiga oo cabir ku samaynaya suuqu inta uu dhaqaaqayo. waxaad dhahaysaa lacalla hadduu lacagta tani la laabto 70 bib baan dhigtay soo maaha? 70 bib haddii aan ku dhufto akoonkayga lotkii ugu weynaa ah lacalla aan ku gali lahaa lotka akoonkayga. waa inaad lotka akoonkaada garanaysaa. $500 baan tusaalaha maanta ku qaadanaynay 0.05 haddii oo aan ku dhufto 70 waxay noqonaysaa $35 aw $35 akoonkayga waxba kama aha. lacalla $35 suuqu hadduu ila dhaqaaqo meelaha stop loss-kayga asagoo gaarin uu correction weyn samaysto akoonkayga waa haysan karaa. hadhowna ultimo waxaa noqonaya qofkii faa'iido samaysta oo suuqa targetkiisii take profitkiisa hela. okay lacagtaas si life waan usoo dhigay anigu stop loss-kayga bartaasaan ka dhigtay. mar walba oo aan arko falaagyada trade-ka samaynaya waxaan garanayaa meesha ugu wanaagsan ee stop loss kala dhigto. maxaa dhacay? xoogaa yar buu laalaabasho sameeyey. maxaa dhacay? cajiib bartii aan ugu talagalnay markuu tegey boqolaal bib barku soo daatay. waa maxay? saaxiibkaadaan $500 watay 100 bib buu suuqa kuu soo dhaca 0.05 baa ku dhufatay $50 baa halka kala baxday. oo bishii haddaad 8 jeer $50 samaysay intaa haysataa akoonkaadii baa laba jibaartay. $10,000 baa ku trade garaynaysa hal lot baa ku dhufsatay 100 bib baa hal lot ku dhufsatay $1,000 baa halka kala baxday. $5,000 baa haystay waxa ku dhufsatay ii sheeg 0.5 baa ku dhufsatay 0.5 baa ku dhufsatay tusaale ahaan 0.5 baa ku dhufsatay. maxaa ka heshay? $500 baa heshay. haddaa bishii aad 7 trade keliya aad $500 qabatay ka war maxaa haysataa? $3,500 baa haysataa 7 trade keliya baa bishii qabatay ma oo badinba. akoonkaadi waa laba jibaar baa ku dhaweysay 5,000. weliba maxaa samaysay? khatartii baa iska ilaalinaysa. faa'iidooyinka waa inaad garanaysaa lotka. suuqa kan wax yar oo la yareysanayo oo qofka ka saara oo nacsiiya oo ciilku dila la socdo. ha yareysanina waxaa idin sheegay waxa aniga guushii keenay oo akoomadayda ku hormariyey oo aqoonteydii iyo xirfadeydii iyo maskaxdeydii inay deganaato aan ku hormariyey. okay suuqu hadduu sameeyo double top hadduu suuqu sameeyo walaalayaal double top halkee aan dhiganaya tusaale ahaan? wuxuu ii sameeyey walaalayaal suuqa kan 1 iyo 2 iyo 3 plus double top baa sameeyey. maxaa samaynayaa? halkaasaa dhiganaysaa. ascending channelkan korkiisaa dhiganaysaa. alla hadduu suuqa kan sii siqo double top buu taagan yahay soo maaha? trade line-ka yarkaa buu afka saa ugu soo taabanaya hadduu sii siqo ugu badnaan kadibna waa lagu soo daadanaya. sidaa quruxda badan baa kumanaan door ku samaynaysaa. marka waa maxay? ascending channelka 1 descending channelka 2 large falaaga 3 midka falaaga sameeya correctionka yar yarka ah
iyo double topka saddexdaas intaasba waxaa idiin sheegay qaynuunada lagu qaato haddii kan uu sameeyo tusaale ahaan large flag hadduu sameeyo 2 touch plus double top waa kii ugu horreeyay aan kasoo hadlayay qaabka loo dhigto waa idiin sheegay casharkayga ha dhayalsanina walaalayaal waa wax guul kuu keeni doona oo maskaxdaada aad u korin doona hadduu ilaahay stoplasskaada hadduu batana lodkaada yaraynaysa dhibka yacni distancegaan isku jira hadduu bato goldhiga oo kale maxaa dhici kara 300 oo bib buu noqonaya 0.05 markaas waa yaraynaysaa 0.3 baa ka dhigaysaa 0.3 lodkaada waa yaraynaysaa haddii stoplasskaada uu bato af Soomaali waan kugu qoraa af Soomaaliga akhriso ku dhaqan ruleska akhriso hortayda ka dhaqaq maxaa iga hor qabanaysaa waxa wax aniguna aan si dhib yar ku barto adiguna si dhib yar aan ku baratay waa muhiim ah okay watan digniinaha labaad aan ku siinayo waa maxay walaalayaal waa digniinta labaad oo casharkan ka siinayo risk management correlation oo waxa aan Soomaalida aan ku soo siyaadiyay correlationska dad badan oo Soomaaliyeed baan xiriirada lacagaha aanan fahansanayn markaan soo bandhigay laakiin ayadan risk management waa loo adeegsadaa barashada xiriiraha lacagaha ka dhaxeeya waxay kuu sahlayaan qodobadan soo socda iska ilaali lacagaha iskansalaya waa maxay lacagaha iskansalaya waxa weeye in laba lacagood oo midna bay aado midna sal aado ya hal trade ka wada qaadatay ya laba lacagood oo midna bay aado midna sal aado waa maxay euro USD mar walba oo euro USD ay sal aado USD CHF na waa tii bay aado marka haddii aadan garanayn habka loo ogaado lacagaha kan xiriir ka dhaxeeya xariifta waxa laga yaabaa labadaba bay inaad u gasho tanna $100 bay kugu wadaysaa oo balance bay kugu wadaysaa weligeed tanna $100 oo sal bay kugu wadaysaa wax faa'iido ma sameyn emotion baa soo kordhisa marka waa inaad iska ilaalisaa inaad trade ka wada qaadatid digniinta labaad waxa weeye iska ilaali lacagaha base-koodu ama code-koodu isku mid yihiin inaad trade ka wada qaadato sida AUD USD iyo GBP USD halkaani waa wax aysan dadka oo dhan aysan fahansanayn maskaxdaada ay soo jeedo haddii AUD USD ay 100% aqoontaadii cilmiyeed ay kuu sheegtay lacagta tan inay sal aadayso GBP USD na aqoontaadii ku soo saartay inay ayaduna sal aadayso ya GBP USD na maxaa ku soo saartay aqoontaadii inay ayaduna sal aadayso okay maxaa dhici kara marka sidee khatartu u imaanaysaa bini aadan baa tahay wax boqol mar walba waxbaa khaldi kara tusaale ahaan waxbaa kaa khaldamay ya boqol baa saadaalsanaysay laakiin waxbaa kaa khaldamay ka soo qaad intaana boqol xitaa boqol haddaa ogtahay lacagaha inay sal aadayaan waa wrong waa khatar waa risk aad u bareedhay inaad laba lacagood oo base iskala mid ama code iskala mid aad qaadatay maxaan ka wadaa base code ya maxaan ka wadaa lacagaha hal lacag hal bayr baa isku gees ka xiga ama AUD baa geeskan ka wada xiga ama USD baa geeskan ka wada xiga marka haddii khatar ay kugu timaado walaalayaal lacagaha kan isku salbi kugu wadaya labadooda minus bay kugu wadayaan haddii khatar kugu timaado labadooda minus bay kugu wadayaan marka digniinta lagu siinayo waxa weeye haddii aad rabtid inaad lacag gashi tusaale ahaan haddii aad rabtid lacag inaad gashi waa inaad hal lacag qaadataa halkaan lacag laba jeer gal ayada awood u leedahay laakiin iska ilaali in labadaa lacagoodba aad bahal ku gashay maxaa dhici kara waxbaa kaa khaldami kara farsama imaan kardha AUD baa news ka soo baxaya aad ogeyn baa jiha kale kugu kaxayn kara adoo sal ugu wada jira GBP USD baa haddii rabto jiha kale kugu kaxayn kardha sal baa ugu wada jira soo maaha jiha kale kugu kaxayn kardha problem baa kugu imaan kara khatar baa waxbaa kaa khaldamay haddii doon maxaa dhici kara analyskaada wax ka khaldamay labadaba sal baa ugu jira soo maaha ya dollarkii baa daciif noqday labada lacagood dollarka markuu daciif noqday kor baa loo wada jiitay bam marka waa maxay trickiskan kugu soo siyaadinaya bay ka mid tahay in ay khatar tahay inaad laba lacagood oo lacag
gees ka wada xigaan hal lacag tusaale ahaan day GBP AUD USD xaggan maxaa ka xiga USD hadda euro USD oo kale haddaa kusoo dirto waa la mid maxaa xaggan ka xiga USD ama inay wada horeeyaan lacagaha kale tusaale ahaan GBP JPY iyo GBP USD aad gashay maxaa horeyn lahaa labadaba GBP-yadii waa horeeya iska ilaali iskana ilow inaad laba lacagood aad trade isku mid ah ka qaadatid waa ku hoogaysaa waa inaad hal lacag haddii aad faa'iido aad og tahay boqolkiiba boqol dhaqaaqaysa hal lacag laba jeer gal adigoo lot size-kaada xisaabinaya xariif okay ayadana digniin baa kaa siiyey okay risk correlationku marka waxyaabaha asaguna aad inaad og tahay kaa caawinaya waa maxay ka feejignaanshaha inaad trade isku mid ah aad ka qaadatid lacago kala jiha ah waa maxay trade isku mid ah inaad lacago kala jiha ah ka qaadatid maxaa ula jeedaa waa sidaan oo kale USD CHF iyo Euro USD weligood isku jaamaadin yah correlationku waxa uu kaa caawinaya waa khatarta noocaasa waa inaad computerkaada timaadaa halkan timaadaa FX book timaadaa casharada advansiga baa kaga hadla waxa kan wax hadda cusub maaha aan ka hadlayo laakiin khataraha risk managementiga si u saameysay baa kuu sheegaya laakiin casharada advansiga correlation wuxuu yahay casharada advansiga baa ka helaysaa okay Euro USD tusaale ahaan saa ugu dhufo ayada waa maxay correlationisku maxay kuu sheegaya tusaale ahaan lacagta tan USD card salbi mar walba aada marka Euro USD bad aayso minus ba halkan lagu soo qoraya way iskhilaafeen bay ka dhigantaa minus marka lacagaha inay iskansalayaan in kale maxaa ku ogaanaysaa xariif waa inaad timaadaa lacagta aad ku trade gareynayso kale lacagtan oo kale soo arkaysaa double topkaasi taagan tahay waa inaad fiirisaa lacagihii la socday jihooyinka ku xisaabsan yihiin haddaa lacagtan oo lacagtii la mid ahayd ay buy ku socoto iyadana aad sell u gashay waa inaad waxyaabo badan iska tricks fiirisaa correlationadaasi fiican uga helaysaan oo kaga hadlay waxaan okay iska hubinta lacagaha si aad uga ogaatid lacagta intriga saxda ah ee lacagtu leedahay qodobkan waa maxay correlationku markii risk managementiga loo adeegsanayo khatarta si loo manage karayo maxay kuu fiican maxay ku sameynaysaa inaad isku hubisid lacagaha sida inaad lacagaha intrigooda markaa galaysid intriga saxda ah markaa galaysid ee sheegaya iyo midka beenta ah baa kuu kala sheegaysa maxaan ka wadaa walaalayaal waa 10 aan soo dhigay waa 10 aan soo dhigay soo maaha tusaale ahaan laba lacagood baa wada socday oo isku jiha aada waxaa rabtaa confirmation inaad ka qaadatid mid ka mid ah rabtaa inaad gashay yah tan halkan bay maraysaa yah laakiin waxyaaba khiyaaliya bay meelahan kaaga sheegaysaa double top khiyaaliya bay meelahan kaaga sheegaysaa lacagta tan lacagtii la socotana waa maxay wax khiyaaliya ma sheegayso halkan double top khiyaaliya ma sheegayso waa maxay meelaha tan bay sii maraysaa hadday tan baa double top khiyaaliya meelahan bull baa gira meelahan ka aragtay waxaad dabacday inaad isku tuurto intaada isku tuurin ka hor walaasheed fiiri lacagtan intaada gelin walaa tii la socota fiiri tii la socota waa fiirisa warniyow lacagtii la socota lacagtan iyo double top waxbaa ugu dhiman marka tan geli mayo marka xariftan maxaa dhacaya iyadana inay shaqadeeda sii bilaabato waxaa laga yaabaa inuu intaas boqolaal bib kor kula aado laakiin haddaa riski aad fiirisid correlationiskii intriga saxdaa buu ku sheegaa mar walba waa la iska fiiriya mar walba waxa aan iska fiiriyo intaana trade qaadin waa lacagaha xiriirada ka dhexeeya inay isku meel joogaan si aad u ogaatid lacagaha xiriirada ku dhexeeya sida loogu shaqaystana casharada advansiga waa inaad si fiican u dhuxdaa ayadaa kaga hadlaya correlationiska okay aniga waxyaabaha cajiibka waxa weeye golligaba waxa ka mid ahaa lacagihii iigu yaabka badnaa waan u adeegsaday correlationka sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan lagu jiray okay ardadu way og yihiin in lacagaha golliga aan sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadka socda oo dhan aan sal u diray step by step waa maxay waxa iga kalifaya walaalayaal sababta iga kalifaysa waa maxay waxaan ogaa correlationiska
tusaale ahaan halkan waa goldi iyo Swiss franc lacagta CHF halkan muxuu ka samaynayaa 1 iyo 2 iyo 3 xaggaana muxuu ka samaynayaa 1 iyo 2 iyo 3 maxaa haysataa suuquna muxuu noo sheegayaa in la sii daadan doono halkaa markii maraysay baa lacagtan aragta goldi baa marka rabtay inaad ka trade garaysay CHF tan confirmation baa rabtay inaad ka dhigtay goldi USD baa rabtay inaad ka trade garaysay intaan si u samaynaysan ku tusaya wax yar baan tusaalaha ku siinaya goldi USD day double 3 touchki maysan gaarin ya laakiin maxaa ogeyd goldi USD in barta hadda uu joogo uu ka daadan doono baa ogeyd qofkii correlationiska aan garanayn goldi dollar inuu halkan ka daadanayay muusan ogeyn laakiin haddaa correlation adeegsan lahayd oo USD iyo XAU dahab u fiirin lahayd ya intee ka qaban lahayd kandalka xoogan markuu soo dhaco haddaa soo geli lahayd maxaa ka qaban lahayd 700 oo bib baa qaban lahayd 700 oo bib baa qaban lahayd ya 25 kaliya ku gashay 25 kaliya ku gashay 700 maxaa ka heli lahayd 25 u dhiganta $10 u dhiganta $5 u dhiganta maxaa heli lahayd waa $3,500 baa heli lahayd hal lot haddaa ku geli lahayd caqligaas waa maxay correlationiska keliya oo isla fiirinayay maxaa heshay hal lot baa ku gashay maxaa heshay $7,000 baa maalmo gudahood ku heli lahayd 2 maalmood maalin iyo xoogaa gudahood ku heli lahayd xariifkii laakiin correlationka aan garanayn goldiga wuu ka baqi lahaa waa maxay riski wuu ka baqi lahaa wuu baqi lahaa xariifkaas waxma kala oga laakiin lacagtii la socotay maxay samaynaysaa maxay noo samaynaysaa entry fiican in goldiga uu leeyahay bay noo sheegaysaa goldigu in barta uu hadda joogo ka dhaqaaqayo bay noo sheegaysaa marka waa inaad trickiska walaalayaal la socotaan intriyada inaad intriga saxan aad ku go'aamisi correlationiska waxay ka dhigan tahay khatartii baad iska ilaalisa intaas ayaan hilmaamayna dee gadaal baan kaga sheegi doonaa aad baa u mahadsantihiin walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul baa inoo rajeynaya insha allah sanadka 2021 idinkoo wax badan iga faa'iiday aad u faraxsan aan wada guulaysanay baa inoo balana asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.